السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتها بول داوديال إذا لهانتين با ميل كسوات جوجتان وعاد كسور دواتان برنامج كي ور يوانو برنامج كان واد مالين كسته وقت كان وكلا عندنا فرصتان التلفزيون كيرتدي برنامج كوحنا يدكوا هاي ناور جسدي عالم كي وحيابي قدام بقرن ورجسنا الدجمة يودلك الجاركة يصدق كلا حمتنا على قدرته برنامج كوحنا كورنا ناور جسدي عالم كي وحيابي قدام بقرن بسم الله الرحمن الرحيم haddii aan ku horeyno wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ay qoreen ee wargeyska Le Monde ee ka soo baxa dalkaasi Faransiiska ayaa maqaal uu qoray wargeysku wuxuu ku waramayaa in qaramada midoobay ay fadhi iskugu yimaadeen lagu rabo in lagu difaaco dadka rayidka ee ay maalin walba Yuhuuddu ku beegsanayaan dhulka Falastiiniyiinta balse arintaasi ayaa uu si weyn uga soo horjeestay dalka Mareykanka وقد ورثك أو قيمة بدن إماتا عالم كوسدا بلادن وجه هذي قرامة مدوبي أولوسو جدبي دعوة يدو أبامل مرنيسا دفاع عالمي أو قرامة مدوبي أي مل مرنيسو سي أي أبد بديسو ضدك الشعب كإيران فلسطين يهودو أي جماديسو ومركز qorshahan ayaa waxa mid ay soo gudbisay dawladda dalka Kuwait ay ku dalbaysana in qaramada midoobay ay meel mariso qorshe xeer caalami ah oo iyagu meel marinaya sidoo kalena badbaadinaya dadka rayidka ee reer Falastiin arintaasi ayaa noqotay mid qaramada midoobay ay ka soo saarin warar wax ku ool leh oo ku aadan aba meel marinaya arintaasi waxa arintaasi sidoo kale hadheeyay muran aad u ballaaran oo ugu horeyntiiba dawladda dalka Mareykanku ay soo bandhigtay iyaduna qorshe iyadu arintaasi meel kaga dhacaya dawladda Mareykanka ayaa meesha ka saartay in Yuhuuddu ay iyadu tacaadiyaad iyo dhibaatooyin bareer ah u geysato muslimiinta reer Falastiin waxa gurada ay ka saartay dacwad dhibaatooyinka aad ku ballaaran ee ka dhashay sida bishii 30kii bishii Maars aan soo dhaafnay Mareyka Gaza ee ku qudwaayeen 100 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad gaadhaya 4,000 qof mid ay sababeen amba ay ku lug lahaayeen ee kooxda Hamas ee ka dagaalanta Mareyka Gaza warbixintan ayaa waxay sidoo kale meel marinaysaa in dawladda Mareykanku ay isticmaashay veto-ga iyadoo ku horjoogsatay qorshaha loo soo gudbiyay ee ku aadana in la meel mariyo qorshe caalami ah oo iyadu difaaca dadka muslimiinta ee rayidka waxba galabsan ee Falastiiniyiinta dacwadaasi waxa soo gudbisay dawladda dalka Kuwait oo ku hadlaysay magaca ururka jaamacadda Carabta waxa nuxurka warkan uu noqonayaa Mareykanka oo isagu iska hortaagay qorshe lagu rabay in lagu meel mariyo ama qaramada midoobay looga sugayay in ay ku meel mariso qorshe isagu meel marinaya ee difaacayana muslimiinta rayidka ee reer Falastiin ee waxba galabsan ee Yuhuuddu ay ku bartilmaameynaysan Mareyka Gaza waxa sidoo kale ay arinta noqonaysa waa markii labaad ee dawladda Mareykanku ay ku joojiso veto-ga arintaasi oo ay kaga horjoogsanayso ayna markaste la safanayso dawladda dalka Yahuuda telefishinka lagu magacaabo BFM TV bartow internetka ku leeyahay warbixin lagu daabacay oo aan soo xiganay ayaa ku waramaysa in dawladdaasi ee Mareykanka laga dhaqan galiyay qodob xeer oo cusub qodobkaasi ayaa mid kala saaraya caruurta iyo waalidada dadka soo galeytiga waa qodob wareed ee dalka Mareykanka si gaar ah u taabanaya dalka Mareykanka waxa la meermariyay qorshe xeer oo kala geenaya caruurta iyo waalidiinta soo galeytiga ee soo gala dalka Mareykanka warkaasi waxa uu ku soo beegmaya iyada oo dalka Mareykanka ay soo kordhayaan amuuraha ku aadan midabka soorka iyo sidoo kale dadka socdaalka qorshaha madaxweyne Trump oo isagu meel marinayo qodob wareedkan ayaa waxa nuxurkiisu u dhigaya in dawladda dalka Mareykanka la meel mariyay qorshe isagu kala saaraya caruurta iyo sidoo kale dadka waalidiinta ee soo galeytiga arintaasi oo la sheegay in dalka Mareykanka la meel mariyay waqtigii uu ka talinayay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Barack Obama waxa qodobkan uu yahay sidoo kale mid lagu dhigay oo sidoo kale dawladda Mareykanku ay ka sii baarandegtay in dadka Mareykanka ee sida sharci darada u jooga dalka Mareykanka marka ciidamada biliiska ay qabtaan ay mamnuuc tahay in ay kala baxaan caruurtooda dalka Mareykanka
waxaa xusid mudan in dalka maraykanka ay si ballaadhan oo baaxad leh ay jiraan dad ayaku aan haysan sharci oo dalka maraykanka gala ee maalin kaste sida warbixintu ay dhigayso waxaa ka mid ah dalalka sida ballaadhan u soo gala dalka maraykanka dalka Mexico oo isagoo ah dal xuduud la leh dalka maraykanka waxaa maanta amba warbixintan ay dhigaysa in dawladda maraykanku ay meel mareysay qorshe ay ku kala saarayso waalidiinta iyo caruurta ayaku iyada oo dadka loo qabto in ay haysan warqado amba si sharci ah u joogin dalka maraykanka ay noqonayso in ay kala bixi karin caruurtooda dalka maraykanka oo caruurta lagaga reebayo gudaha dalka maraykanka kadibna la musaafirinayo qofka ajaanibka ee si sharci darada u jooga dalka maraykanka radioga RFI Africa barta uu internetka ku leeyahay warbixin lagu daabacay oo aan soo xigeynay ayaa ku waramaysa in dalalka ugu qanisan caalamka ay walaac ka bixinayaan qorshaha cusub ee maraykanka ee ah cashuur kordhinta ee macdanta ee laga soo dhoofiyo ee dalalkaasi reer galbeedka kadib markii maalintii jimcihii aan soo dhaafnay dawladda maraykanku ay dhaqan gelisay qorshaheega ah ku aadan kordhinta madcabta iyo weliba madcabta iyo sidoo kale xadiidka kala duwan ee dalka maraykanka la soo geliyo waxaa soo kordhaya in dalalka toddobada dal ee adduunka ugu qanisan ee maraykanku xubinta ka yahay 6 dal ee kaleeta in ay iyagu sheegeen in ay arintaasi walaaca ka muujinayaan wasiirada dhaqaalaha ee dalalka ugu qanisan adduunka ayaa ayagu sheegay in arintani ay keenayso in dagaal ganacsi uu si toos ah u dhexmaro dalalka adduunka ugu qanisan ee ayagu ah dalalka lagu magacaabo G7 waxaa sidoo kale amuurtani ay noqonaysaa mid dalalka toddobada dal ee adduunka ugu qanisan ayagu ay ku soo saareen warbixintaasi ayaga oo ku yeeshay kulan dalka Canada waxaa sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa in dalalka ugu qanisan adduunka ee lagu magacaabo G7 ay sheegeen in arintan ay tahay mid keenaysa isku dhac dhinaca dhaqaalaha labada dalalka maraykanka iyo sidoo kale 6 dal ee adduunka ugu qanisan oo kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka uu sheegay inuu cashuur kordhin ku wixiyay dhammaanba alaabaha kala duwan ee dawladda maraykanku ay ka soo qaadato dalkaasi kadib markii dawladda ama hay'adaha dalalkaasi ama wasiirada dhaqaalaha ee dalalka adduunka ugu qanisan ay soo saareen warbixintaasi ay walaaca ku muujinayaan sidoo kalena ay ku cambaaranayaan dawladda maraykanka qorshahaasi ku aadan dhinaca dagaalka dhinaca ganacsiga waxaa amuurtaasi ka hadlay xogeeye dawlaha maraykanka u qaabilsan dhinaca ganacsiga oo isagu sheegay in dawladda maraykanku ay ka go'an tahay in ay hogaamiso dhaqaalaha adduunka sidaasi darteedna ay u asmaxayn in dhaqaalaheega cid kaleeti ay saameyn ku yeelato dawladda maraykanka ayaa meel maraysay qorshahan ku aadan kordhinta cashuurta dhammaanba madcabta kala duwan ee dalka maraykanka la soo geliyo taasi oo keenaysa in madcabta kaliya maraykanka lagu sameeyo maraykanku uu door bidayo iyada oo ogsoonahay dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan ay ayagu yihiin dalal ayagu u soo dhoofiya dalka maraykanka madcabta kala duwan haddii ay noqoto dalka Shiinaha midowga Yurub iyo dalka Canada oo isagu xiriir ganacsi oo weyn la leh dalka maraykanka nuxurka warkan ayaa waxa uu joogsanayaa dalalka adduunka ugu qanisan oo ayagu ku shiray dalka Canada ayaa soo saaray inay ugu horreynba cambaareynayaan dawladda dalka maraykanka qorshaheeda ku aadan kordhinta cashuurta madcabta kala duwan ee dalka maraykanka la soo geliyo geeska leeyte waxay ka muujiyeen walaac inuu ka soo cusboonaado caalamka amuuraha ku aadan ee weerar amba dagaal dhinaca ganacsiga oo dhexmara dalalka adduunka ugu qanisan wargeyska Le Monde ayaa isaguna maqaal kale oo uu ku qoray dalalkaasi reer galbeedka waa soo xiganay ayaa wargeysku waxa uu ku waramayaa in dalkaasi Spain wararka ka soo baxaya ay sheegayaan in rajo cusub ay u bilaabantay xukuumadda gooni goosodka ee gobolkaasi Catalan kadib markii dalka Spain xilka laga qaaday madaxweynihii dalkaasi ayaa waxa lagu soo waramayaa in dalka Spain oo ka soo cusboonaatay rajo aad u ballaadhan oo dhinaca gobolka Catalan ee isagu ahaa gobol rabay inuu ka baxo dalkaasi Spain
waxaa sidoo kaleeta lagu soo waramayaa kadib markii jagada madaxtinimada dalka Isbaan laga ceedhiyey madaxweynihii talada hayay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in gobolka Catalan laga soo doortay madaxweyne cusub oo heer gobol ah madaxweyne heer gobol ah kaasi oo isagu ah mid matalaya gobolka Catalan waxaa sidoo kale arintan ay keenaysaa in gobolka Catalan ay ka baxday cadaadiskii dawladda dhexe ee dalka Isbaan ay ku haysay gobolkaasi Catalan waxaa sidoo kale meesha ka baxaya sida warbixintu ay dhigayso qodobka 155 oo u asmaxay dawladda dhexe ee dalka Isbaan in ay deelaba la wareegto maamulka iyo maareynta gobolka Catalan waxaa maanta gobolka Catalan laga dareemay reereyn iyo waliba sidoo kale farxad aad u ballaaran iyada oo kadib markii laga ceedhiyey madaxweynihii gobolka hay'adaha dalka Isbaan taasi oo keentay in gobolka Catalan rajadu ay dib u soo cusboonaatay waxaa labada dhinac Catalan iyo Isbaan laga sugayaa maanta in xukuumado ay ka soo kala dhisaan xukuumadda gobolka Catalan ayaa noqonaysa mid heer gobol ah iyadoo sidoo kale lagu soo waramayo in ay soo cusboonaanayso rajada gobolka Catalan ee ah in ay dibadda ka joogsato dalka Isbaan radioga RFI ayaa isaguna wararkii ugu dambeeyay uu ka qoray dalkaasi Turkiga waxa uu wargeysku ku waramayaa in madaxweynahaasi dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu si ballaaran ugu guda jiro ololaha doorashada madaxtinimo ee dalkiisa iyadoo ay si rasmi ah doorashooyinkaasi u qabsoomi doonaan 24 bishan aan ku guda jirnay June iyada oo la xidhiidho ololaha doorashooyinka baarlamaaniga iyo madaxtinimo ee ku beegan 24 bishan aan ku guda jirno madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagu ku guda jira ololaha doorashooyinkaasi waxaa la sheegayaa maanta inuu gaaray gobolka Diyarbakir oo isagu ah gobol ay ku dhaqan yihiin dad gaadhaya 1 milyan iyo 1.7 milyan oo qof oo ku dhaqan deegaankaasi kuwaasi oo badidooda ka soo jeeda qoomiyadda Kurdida ee dalkaasi Turkiga ololaha ayaa noqonaya kii ugu qiimaha badnaa ee madaxweynaha dalka Turkiga uu isagu ku gaadho gobolkaasi waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in madaxweynaha dalka Turkiga uu halkaasi oo isku soo bax aad u ballaaran ka qabtay halkaasi uu madaxweynuhuna uu ka jeediyay qodbad aad u ballaaran dadka ka faallooda amuuraha dalka Turkiga ayaa sheegay in arintan ay tahay in madaxweynaha dalka Turkiga gobolkan uu isagu karayn inuu ku guuleysto amba uu ka helo natiijooyin wax ku ool ah iyadoo ogsoonahay in dadka ku dhaqan gobolkan u badan gobolkan ay yihiin dad ayaku Kurdida ah ee ku dhaqan dalkaasi iyada oo dawladda dalka Turkiguna ay ka wada hawlgallo aad u ballaaran ee deegaano kala duwan oo ku yaala dalka Suuriya ay ku dhaqan yihiin qoomiyadaha Kurdidu iyadoo sidoo kale tan xisbiyada Kurdida dawladda dalkaasi ay u aqoonsatay inay yihiin kooxaha argagixisa waxaa nuxurka warka noqonaya madaxweyne Erdogan oo ku soo guda jira ololaha doorashooyinka madaxtinimo iyo kuwa baarlamaaniga ku beegan 24 bisha inagu soo eedan ayaa lagu soo waramayaa in madaxweynuhu uu gaadhay gobolka Diyarbakir oo isagu ah gobol ay ku dhaqan yihiin 1.7 milyan oo qof oo ayaduna sidoo kale ay u badan yihiin qoomiyadda Kurdida ee dalkaasi Turkiga radioga BBC barta internetka ku leeyahay warbixin kale oo lagu daabacay waan soo xiganay ayaa ku waramaysa in Israa'iiliyiintu ay duqeymo cusub u geysteen laba goobood oo ka tirsan marinka Gaza diyaaradaha dagaalka ee Israel ayaa duqeeyay laba goobood oo ku yaala marinka Gaza ee dalkaasi waxaana sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa in ciidamada dalka Israel ay howlgalkaasi qaadeen kadib markii madaafiic ay ka soo dhaceen sida la sheegay marinka Gaza oo kuwaasi oo ka biyadiidan isticmaalka dawladda Yahuuda iyo dhibaatooyinka tacadiyaadka kala duwan ee u geysanayso dadka muslimiinta ee reer Falastiin ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay weeraradaasi kala duwan ee Yahuudu sheegtay in lagu ekeeyay
ee dalkaasi Israa'iil xuduudda u leeyahay marinka Gaza iyadoo sidoo kale tan warbixintu ay dhigayso in arintan ay ku soo beegmayso iyadoo dawladda Yuhuuddu maalmahan dambe ku bartilmaameedsanayso muslimiinta reer Falastiin ee ku dhaqan marinka Gaza iyadoo sidoo kale tan maalintii ee Sabtidii ee aan soo dhaafnay ay kumanaan qof oo Falastiiniin ay ka qayb qaadanayeen gabadh iyada dhakhtar ah ama kalkaaliye caafimadeed ah oo dawladda Yuhuuddu ay ku dishay marinka Gaza maalintii shalay tole waxa warbixintu dhigaysa dawladda Yuhuudda ayaa laba weerar ku eekaysa oo duqeymo dhinaca cirka ku eekaysa marinka Gaza ilaa iyo hadda ma jirto warar sugan oo sheegaya qasaaraha iyo dhibaatooyin kala duwan ee ka dhashay inkastoo muslimiinta reer Falastiin la sheegayo in marinka Gaza ayaga ku sugan ay ku eekayeen madaafiic ku garaaceen qaybaha kala duwan ee xuduudda u dhaxaysa Gaza iyo sidoo kale dhulka Yuhuuddu haysatay iyadoo sheegato inay tahay dalkiga wargeyska Jenafrik ayaa isaguna maqaal uu ku qoray dalkaasi Masar waxa uu wargeysku ku waramaya in madaxweynaha talada dalkaasi haya Masar Abdul Fattah al-Sisi mar labaad loo dhaariyay xilka jagada madaxtinimo ee dalkaasi Masar haddaba haddaan soo gaarno wararka sida tooska u taabanaya qaaradda Afrika madaxweynaha dalka Masar ayaa loo dhaariyay hogaanka dalka Masar markii labaad kadib markii isagu qabtay hogaanka dalkaasi sanadkii 2014 warbixintan ayaa waxay dhigaysaa Abdul Fattah al-Azizi ayaa isagu ku hordhaartay golaha baarlamaanka qaran ee dalkaasi Masar isaga oo arintaasi ku maray wacd amuuro dhowr ah isaga oo sheegay in uu isagu adkeeni doono dhaqaalaha iyo amniga dalkaasi Abdul Fattah al-Azizi ayaa isagu qabtay hogaanka dalka sanadkii 2014 isagoo xubinka ahaa ciidamadii militariga ee Gambiyay sidoo kale madaxweynihii Maxamed Mursil ee dalkaasi Masar nuxurka warkan ayaa waxa uu noqonayaa Abdul Fattah al-Azizi ayaa mar kale loo dhaariyay jagada madaxtinimo ee dalkaasi isagoo sii hayni doono hogaanka dalkaasi 4 sano ee nagu soo eedan maqaalkaasi uu qoray wargeyska Jenafrik haddii aan kaga imano wargeysadii caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ay qoreen waxaan u gudbaynaa qaybta kale ee barnaamijkan ee ah wargeysada caalamka iyo wargeysada degmada wixii ay ka qoreen degmada iyo dalalka jaarka wargeyska Le Monde ee ka soo baxa dalkaasi Faransiiska ayaa maqaal ballaaran oo uu ku qoray dalkaasi Yemen waxa uu ku waramaya wargeysku in ay dagaalo aad u ballaaran ay ka socdaan ee dalkaasi Yemen waqodowareed ee ka hadlay dalka Yemen waxa lagu soo waramayaa in dalka Yemen 100 qof ay ku qurweyday muddo 7 ah dagaalka ka socda ee dhexmaraya kooxaha Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen iyo sidoo kale isbahaysiga Sacuudiga hormood ka yahay ee u helinaya dawladda beesha caalamku ay qoonsan tahay dalka Yemen waxa dagaalkaasi uu yahay mid dhexmaraya labadaasi qaybood iyadoo la isku haysto marsada al-Xudeediya loo yaqaano ee ku taala dalka Yemen iyadoo ah goob istiraatiiji ah oo ku taala badda cas oo sidoo kalena deeqaha bini'aadantinimo ee beesha caalamku ay soo gaarsiinayso dalka Yemen ay halkaasi looga gudbiyo waxa xukuumadda dalka Yemen iyo gacan ka helaysa isbahaysiga Sacuudiga hormood ka yahay ay tan iyo 7 muddo laga joogo ay dagaal ku ekeeyeen kooxaha Xuutiyiinta ee gacanta ku hayay deegaanadaasi waxa warbixintu ay dhigaysaa in ilaa iyo 7kan gudihiisa ay 100 qof ku qurwaayay dalka Yemen iyadoo sidoo kale tan dad badan ay ka barakaceen deegaanada dagaaladaasi ay ka dhacayeen nuxurka warkan ayaa waxa uu noqonayaa xaaladda dalka Yemen oo ka sii daraysa iyadoo dagaal xoogan uu dhexmarayo kooxaha Xuutiyiinta iyo sidoo kale isbahaysigu uu Sacuudiga hormood ka yahay ee sidoo kale dagaalka ay ku helinayaan yiraahdee dawladda beesha caalamku ay qoonsan tahay dalka Yemen waxaa sidoo kale wargeyskaasi uu qoray in kooxaha Xuutiyiintu ay sheegeen in ay hawada dalkaasi Yemen ay ku arkeen dayuurado laga leeyahay kuwa qumaatika oo laga leeyahay dalkaasi Israa'iil haddii aan u gudubno wargeyska kale xiga wakaaladda wararka u fidisa dalkaasi Soomaaliya Sona ayaa warbixinay soo saartay wakaaladdu waxa ay ku waramaysaa in taliyaha ciidanka xoogga dalka
oo uga digay ciidanka militariga in fasax la'aan ay magaalada hub ku dhex haystaan ambaba ku dhex sitaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Cabdiweli Jaamac oo ka hadlay howlgalka amniga sugidda ee ka socda caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya ayaa ka digay in ciidamada dalka Soomaaliya ay si sharci ayaka oo fasaxaysan ay ayaku la dhex wareegaan qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay oo sal uga dhigay amurahaasi inay tahay amuro la xiriira dhinaca ammaanka waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada u xil saaran sugidda iyo xasilinta magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ay ayaku xaq u leeyihiin in ay gacanta ku hayaan ammaanka magaalada Muqdisho ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale ka waramay in ay halis tahay mararka qaar in dad hubeysan ay ka kala gudbaan dariiqyada kala duwan ee dalkaasi iyadoo oo ay suuragal tahay in dadkaasi ayaku ay hubkaasi wax ku laayaan amba sidoo kaleete hubkaasi kooxo maleeshiyada ay ku laayaan shacabka dawladda federaalka ee Soomaaliya nuxurka warkan ayaa waxa uu noqonayaa madaxa taliska ciidanada xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Cabdiweli Jaamac ayaa ka dalbay in ciidamada dalka Soomaaliya ay sir ruqsad la'aan ay ula dhex socon hubka kala duwan ee suuqyada kala duwan ee magaalada Muqdisho ee Soomaaliya warbixintaasi ay soo saartay wakaalada wararka oo fidisa dalkaasi Soomaaliya ayaa ugu dambeysay qaybtii ugu horeysay run ahaantii aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Khadiir Geedaaye sida ballaaran ee noga qayb qaatay qaybtii ugu horeysay barnaamijka adiga yaa mudan Nasir warbixintaasi ay soo saartay wakaalada wararka u fidisa dalkaasi Soomaaliya hadii aan waxoogaa ku yar hakano ayaa jarnaalka ama waxa yiraahdee taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Soomaaliya ayaa isagoo uga digay in ciidamada ka tirsan hay'adaha askarta ka tirsan ciidamada dalkaasi Soomaaliya ay si ruqsad la'aan iyaga oo fasax ku jira ay u qaataan caasimada dalkaasi iyaga oo jeeni qaaran qoryaha amaba hubka kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyada oo arintaasi uu ku tilmaamay in sidii loo guud ahaanba loo xasilin lahaa ammaanka guud ee caasimada Muqdisho iyo magaalooyinka kaleba ay tahay in goob walba loo daayo oo cidii iyada u xil saaran in ay sugto amniga guud ee magaaladaasi balse ay mamnuuc ka tahay cid kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida in ay si ruqsad la'aan iyo hubkooda sita ay suuqyada u dhax lugeeyaan ee magaalooyinka gaar ahaan caasimada dalkaasi Soomaaliya ee Muqdisho hadii aan intaasi aan kaga imano waxaan u gudbaynaa qaybtii qudaarta oo ay noo soo eegto noo soo diyaariso wariye Rodo Daahir ku soo dhaw barnaamijka ومسنتاي ناصر إبراهيم وندوهاي maxay tahay qormada amba hayraadee amba xubinta aad noo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan ee ku saabsan qudaarta in badan baa Naasir oo ka soo hadalnay faa'iidooyinka kala gedisan ay noo xambaarsan yihiin khudaarta gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan balse maanta waxaan si gaar ah ugu soo qaadanaynaa faa'iidada uu noo xambaarsan yahay muuska inkastoo muuska aad looga faa'iideysto bisha barakeysan ee Ramadaan goob badan lagu iibiyo si wanaagsan looga faa'iideysto kuna xiran dad badan hadaba waxtarka iyo faa'iidada uu noo xambaarsan yahay muusku qormadii aan ka diyaarnay handaawano muusku wuxuu ka mid yahay khudaarta lagu badan yahay isticmaalkeeda bisha barakeysan ee Ramadaan waana khudrad waxtar badan u leh caafimaadka bini'aadanka muuska waxaa la heli karaa sanadka oo dhan wuxuuna ka kooban yahay fiitamiino iyo nafaqooyin kala duwan oo kordhinaya guud ahaan awoodda jirka haddaba faa'iidooyinka caafimaad uu noo xambaarsan yahay muusku ka hortagga cudurka kansarkaasi uuna ugu faafin jirka intiisa kale wuxuuna ka dawo yahay dhiig-yarida muusku wuxuu isku dheelitiraa milixda jirka sidoo kale waxaa lagu daweeyaa kaliya xanuunka iyo ka hortagidda inay daciif noqdaan aragga indhaha waana mid aad ugu wanaagsan xaaladaha daalka joogtada ah iyo dildilaaca ku imaada jirka wuxuuna qayb weyn ka qaataa baabi'inta walwalka badan isagoo maskaxda siinaya deganaan isticmaalka muusku wuxuu aad ugu wanaagsan yahay orodyaanada iyo dadka ku badan jimicsiga oo ay dhakhaatiirtu intooda ugu badani ay kula taliyaan midiisa dhinac kale muusku wuxuu door muhiima ka ciyaaraa nadiifinta finanka wejiga guud ahaan faa'iidadiisa kuma koobna inta aanu soo sheegno kaliya wuxuu leeyahay
qaar kale oo badan oo aan la soo koobi karayn ee waxaa muhiim ah inaan ka faa'iidaysano wixii waxtar inoo leh وحاجة واحد من تعسيان كوي جيني فايدة واحد بارسين هي موسى هيرو الناس روسان صوت داوني بموسى واحد تركيز ما سوا كوبي كرا إنه إن بدنا نواقص وهذا اللي فائدوي ككل جديسن أي نوع بارسين خضارته أم بيصيدون طبعا نقطة من الناس رو موسكو فائدة أد وبلارن أي نوع بارسين واحد ترك عافيماتك هذه أي نقطة بقرحين تجرك إن الوجه جلوها بيو أي هواينكو كجا فائدستان فينك وجه كسر دريرة إنه كبابيو سيدو كلو في عيهاي مقارك dhammaan xubnaha kala gadisan ee jirkeena caafimaadka indhaha wadnaha sidoo kale naasiro faa'iidooyin kala gadisan ayuu noo xambaarsan yahay hadaba daawade waxa muhiim ah inaan ka faa'iideysano wixii waxtar inoo xambaarsan mar walba muuskuna qayb ayuu ka yahay faa'iidada khudaarta kala gadisan oo eebay nagu deeqay وهاجاج الحدنتاasi ayaa ugu dambeysay runtii aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaa Rodo Daahir gabi ahaanba barnaamijkeeni war iyo waano intaasi ayaa uu ku idilyahay anagoo gabi ahaanba u mahadcelinayna wariyaasha iyo farsamayaqaanada sida ballaaran ee noogala qayb qaatay habsami u bixida barnaamijka war iyo waano tan iyo intaan maalinta bari barnaamijkani barnaamij lamid ah aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa idin ahaantiinba nabadgelyo iyo ammaanaad